intii u dhaxaysay sanadkii 1860 ilaa 1897 waxaa dhulka Soomaalida iyo gobolka uu ku yaalaba uu noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga xilligaasi wadamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxa ahayn Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Masar iyo Ethiopia. haddaba sanadku markuu ahaa 1859 ayaa Faransiiska qunsul u fadhiyay magaalada Cadan uu ogolaansho uga helay cafarta magaalada Obakh in Faransiisku uu yimaado. 3 sano kadibna Faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday Obakh kadibna calankii Faransiiska ayaa halkaasi laga taagay. hase ahaatee Faransiisku waxa inuu ka faa'iideysto uu bilaabay 11 sanadood kadib markii la furay Suez kanaalka waxaana halkaas ay Itoobiya waqtiyadaasi ay ka wada sameeyeen sharikad xagga ganacsiga ah oo ka dhaxaysa labadooda. dhinaca kale haddii aynu eegnana Talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka Badda Cas waxaana wasiirka arrimaha dabadda ee Talyaaniga waqtigaasi oo lahaa uu awood u siiyay baadari hore u fadhiyi jiray dalka Ethiopia oo la oran jiray Giuseppe Sapeto in Talyaaniga meel uga helo halkaasi. 1869 ayaa Mr. Giuseppe uu helay magaalada Layada Casab sanadkii ka dambeeyayna shirkad Talyaaniga oo ku hawlanayd wixii maraya Suez kanaalka oo ku socda India ayaa Talyaaniga Casab uga iibisay cafarta sida taariikhdu ay qorayso. xilligaasi Masar ayaa iyaduna dareentay tartanka gobolka loogu jiro dabadeedna waxa ay soo nooleeyeen Turkiga oo hore isagu u sheegan jiray xeebaha Badda Cas. sanadku markuu ahaa 1866 ayaa Turkigu dabadeed Sukayn iyo Musawac oo Eritrea ku wareejiyay dawladii Khadiif Ismaaciil ee Masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha Soomaalida. dawladdaasi Khadiif Ismaaciil barasaabkii u fadhiyay Suudaan ayaa dabadeed sanadku markuu 1887 booqasho ku yimid isagoo ujeedadaas u socda magaalooyinka Tajura, Zaylac iyo Berbera. mar dambana waxa la soo diray nin la oran jiray Maxamed Jamaal Bey oo calankii Masaarida isagu ka taagay Bulaxaar. haddaba tallaabadaasi markii Masaaridu ay qaaday taasi waxa ay baraarujisay Ingiriiska oo fadhiya Cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaas hilibku uga iman jiray xeebta Soomaalida. Ingiriisku waxa kale oo ay doonayeen in wadan kale oo awood leh aanu qabsan xeebaha Soomaalida gaar ahaan waxa isha ay ku hayeen oo ay ilaalinayeen Faransiiska oo tartan ka dhaxeeyay. hase yeeshee Ingiriiska iyo Masaarida ayaa afgarasho ay dhexmartay maamulkii Masaariduna si dhaqso ah ayuu ugu fiday xeebihii Soomaalida. 1877 ayaa Ingiriiska iyo dawladii Khadiif Ismaaciil ee ka talinaysay wadankaasi Masaarida ay heshiis kala saxeedeen oo ay isla ogolaadeen in talada Masaarida ay gaadho ilaa Ras Xaafuun. dawladii Khadiif Ismaaciil waxaase yeeshee ay ka baxday gobolkaasi markii mahdigii Suudaan uu ku kacay oo iyadu markaasi awoodi kar weyday in ay isballaariso. intii Masaaridu ay ka talinayeen xeebaha Soomaalidana waxa ay hagaajiyeen waxa ka mid ahaa dekedaha magaalooyinka Berbera iyo Zaylac, noobiyado ay dhiseen iyo biyaha macaan ee Dubaar ee magaalada Berbera waxa kaloo ay dhiseen masaajido. markii haddaba Masaaridu ay ka baxeen xeebaha Soomaalida ayaa Ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisiyo oo la galo qabaa'ilka waqooyiga Soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada Berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiyay magaalada Cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa wadanka India. haddii aynu dub ugu noqon haddaba Talyaanigu markii uu sugay in Eritrea ay mustacmarad u noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca Abyssinia ama Ethiopia waxaana uu la galay heshiiskii la oran jiray Ujialia oo Talyaanigu u arkayay in Abyssinia mustacmarad uu uga dhigayo Talyaaniga. inkasta oo boqorkii Ethiopia waqtigaasi ka talinayo loo oran jiray Melik uu isagu ku dooday in heshiiskaasi tarjumadiisa Afxmaariga marka la eego aanay sida iyadu ahayn oo markaasi ay u fasaxaysay inuu si toos ah ula macaamili karo wadamada dibadda. heshiiskaasi awgi ayaa Talyaanigu u suura geliyay inuu bilow u noqdo inuu ka qayb qaato qaybsigii Soomaalida la qaybsanayay. sanadkii heshiiskaasi la galaba waa 1889 bishii February qulsul Talyaaniga ka fadhiyay Zanzibar oo la oran jiray Vincenzo Leonardi iyo suldaankii Hobyo Cali Yusuf ayaa heshiis galay Talyaanigu uu ku ilaalinayo. sanadka dhamaadkiisina shirkadda Talyaanigu lahaa oo la oran jiray Imperial Bridge East Africa ayaa ka sii kireeyay Talyaaniga xeebaha Banaadir oo uu markii hore ka kireystay suldaankii Zanzibar. sanadku markuu 1892 suldaanku waxa uu ku wareejiyay Talyaaniga magaalooyinka Baraaw, Marka, Muqdisho, Warshiikh muddo 25 sanadood isaga oo kaga kireeyay 160,000 sanadkiiba waa lacagta liiraha.
haddii haddaba aynu dib ugu laabano abasinia amaba etoobiya markii uu arkay damcii reer yurub ayaa boqorkii etoobiya ka talinaya wakhtigaasi amanlik waxa waraaqu u qoray dalalka awoodda lahay wakhtigaasi jiray sanadkii 1819 warqadaasi waxa uu ku yidhi etoobiya muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana haddii wadamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay afrika iyagu qaybsadaan kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan danka lahayn dagaalkii cadwa ee dhex maray talyaaniga iyo etoobiya sanadkii 1896 ayaa haddaba tirtiray sheegashadii talyaanigu uu sheeganayay etoobiya inay mustacmaradu tahay dagaalkaasi oo talyaaniga laga adkaaday kadib markii talyaanigu lagu jebiyey dagaalkaasi cadwa waxa uu u howlgalay sidii u sii haysan lahaa dhulkii soomaalida ee uu qabsaday nin la odhan jiray major nerozanium ayaa wadahadalla dhinaca talyaaniga u galay waxaana etoobiya talyaaniga ay ku khasabtay inuu yareeyo dhulkii uu sheeganayay ee ogaadenaya dhulkaasi oo heshiis hore ingiriiska ay wada galeen sanadkii 1894 ingiriisku uga ogolaaday sanadku markuu 1897 ayay Itoobiya iyo Ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmaynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka Soomaalida hase ahaatee Soomaalidu waxay u ogaatay waxa dhacay 30 sanadood kadib markii la isku dayay in soodinta u dhaxaysa la calaamadiyo sheekadaasi marka aynu soo gaadhno ayaynu haddaba ku soo noqon doonaa dhagaystayaal hase yeeshee haddii aynu ku soo dhawaano qarnigan dhamaaday waxa Soomaalida uu u bilaabmay iyada oo la gumaysto gumaysigaasi 20 sanadood ee qarniga ugu horeeyay halgankii ugu weynaa ee koor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee uu hogaaminayay sayid maxamed cabdulla xasan sida haddaba qiyaasu tahay sayidku waxa uu dhashay bishii abril 7 sanadkii 1864 waxa uu ku dhashay ceel laga cabo oo ku yaala meel u dhaxaysa wedwed iyo buuhoodle 7 jir markuu ahaa ayuu quraanka barashadiisa bilaabay 19 jir markii uu gaarayna waxa uu noqday sheekh oo loogu yeeray intii barashada cilmiga uu ku jiray sayid maxamed cabdulla xasan meelihii uu soo maray ee uu tagay waxa kamid ahaa magaalada Harar ee dalka Itoobiya Muqdisho Suudaan iyo Maka intii uu joogay Maka waxa macallin oo noqday amaba uu ku xidhmay sayid maxamed saalex oo dariiqada saalixeeda isagu ku abtirsato sayid maxamed cabdulla xasan markii uu berbera ku soo laabtay dhulka Soomaaliland waxa ugu horeysay dariiqada qaadireeda oo Sheekh Cabdulqaadir Jiilaani uu ku sameeyay magaalada Baghdad ee waddanka Ciraaq dhulka Soomaalidana waxa hormood ka ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Zaylaci iyo Sheekh Huways Maxamed sayid maxamed markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada saalixiya waxa uu bilaabay ololo uu Ingiriiska kaga saaray dalka isagoo oo huwan dariiqadiisa saalixiyada sanadku markuu ahaa 1899 bishii abril waxa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaaraya ilaa 3000 oo nin 1 September sanadku markuu ahaa 1899 waraaq uu soo diray qunsulkii Ingiriiska xeebaha Soomaalida ugu qaabilsana waxa sayidku Ingiriiska uu ku eedeeyay inay cadaadinayaan islaamka waxana uu cambaariyay kuwa gacanta siinayay warqadaasi waxa uu ku yidhi sayidku imika idinku kala doorta haddii aad dagaal doonaysaanna waa ogolla haddii aad nabad doonaysaanna ganax bixiya maalintaasi ayaa nin fallaaga loo qoray 20 sanadood oo dagaal kula jiray Ingiriiska Talyaaniga iyo Itoobiya ayaa markaasi bilaabmay haddaba bal aan idinku wareejiyo aw jaamac Cumar Ciise oo inoo sheega sida sayidku uga baxay berbera ilaa iyo intii ay dagaalada isaga hor yimaadeen Ingiriiska anigoo soo koobaya sayidku dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay wuxuu ka bilaabay berbera sida la leeyahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin baadariyi isagoo inama dhowra 5 iyo 6 dabada ka wada suuqa marinaya ayuu arkay markaasuu yiri war waxa kan waa maxay dee waa diinteennii oo la soo galay laba dhagax buu qaatay baa la yiri wuxuu ku dhiftay gaalkii meesha joogay oo baadariga ahaa wuxuuna yiri ilaahu maantay intaasan awooda culimada reer berbera hadallada la isku jiiray oo dhowr eraya uu sheegay oo yiri baridu waa xaraan qaadku waa xaraan iyo waxyaabo kamida ayay xoogaa yarahee arrintii la isku maandhaafay markii dambena xaalkiisii magaaladii waa ku fiday oo magaalada berbera wuxuu ku noqday nin caan ah oo wax soo wada nin la oran jiray Allahu naxariistay awgaas ayaa xaalkiisii markuu eegay wuxuu yiri wali ninkan haddaan maanta la qaban meel fog baa laga dooni waa la dacweeyey adigu markuu dareemay inaan magaalada xoogaa yarah laga jeclayn ama wuxuu ugu soo roobi karin waa ka baxay wuxuu sii maray dhaymoole iyo majacase oo ay ka furayd
maaragtay muxuu ahaayey laba isgool oo baadariya oo ciyaal agoona iyo lagu ururiyey wax lagu baraayey inan buu u yeeray wuxuu yidhi adeer magacaa wuxuu yidhi john baa la yidhaahdaa waagii horena maxaa lagu ohan jiray cali sidaas ayuu usii dhaafay baa la yidhi wuxuu yidhi maanta matanay joogtaa shiikh buu sii maray suldaan nuur axmed ammaan ayuu wuxuu ugu tegey ood weyne wuxuu sii socdaba maxaa yeelay hadalka ayaan soo koobi dabadeedna qolyahaas habar yoonista xoolo badanna waa siiyeen aad iyo aad bay u kaalmeeyeen waana lays afgartay 17 bishii abril sanadkii 1903 sagaal sarkaal iyo 189 askari oo kale ayaa ingiriiska laga dilay sayidka ciidamadiisana iyagana waa la weeqay taasuna waxa ay keentay in heshiis nabadeed uu la galo ingiriiska iyo talyaaniga oo uu ku codsado in loo yeelo 4 arrimood waata koobaade in uu meel ku yeesho dhulkii talyaanigu xukumayay ta labaad inuu helo xornimo xagga diinta ta saddexaad inuu xornimo u helo iyadana xagga ganacsiga iyo ta afraad oo ahayd inuu xukumo dadkii isaga markaasi la socday 4 arrimood oo sayidku codsadayba afartaba waxa laga ogolaaday heshiiskii ka dhacay meesha la yiraahdo ilig bishii March 5 sanadkii 1905 hase ahaatee sayidka ololihiisii halkaasi kuma joogsan waxa uu ugu kulula dagaalkii xagga afka ee ay xambarsanaayeen gabayadiisu sida loo arkayba waxaa dabadeed dhacday in ingiriisku uu dib ugu soo gurto xeebahaasi oo uu hubeeyo qabaa'ilkii la jiray sanadkii 1913 dagaalka ba'an ee ka dhacay meesha la yidhaahdo dulmadoobe oo bariga magaalada burco ka xiga ayaa lagu dilay ninkaasi la odhan jiray Richard Coffey sayid maxamed cabdalla xasan gabay dheer ayuu ka tiriyey geerida Coffey koofilow jiitayaan dunida joogayne adigaa jidkii lagugu waday jimiclaaneede jahanamo la geeyo wada aakhiro jahanne nimankii jannu kacay warbay jiriin ishalleeyeen kuwaasa naarta joogiyo markaad janaanadii gaadhid siduu eebbahay ku jirrabay mari jawaabteede daraawiish jigraar nagama dayntan iyo jeerkeedheen jigta weerar bay goor barqaca nagu jifeeyeendheen ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jac iyo baaruud dheen